kooxaha hubeysan ayaa xalay saqdi dhexe weeraray mid ka mid ah suuqyada ku yaala xaafadda Islii iyagoona dil iyo dhac ka geystay suuqaasi. burcadani ayaa dishay laba ka mid ah ilaalada suuqa waxa ayna dhaceen qaar ka mid ah hantidii taalay suuqaasi. dhacdadani ayaa waxa ay ka dhacday suuq lagu magacaabo Gaarisa Lodge oo ku yaala bartamaha xaafadda Islii. maxamed shiine oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida ku nool xaafadda Islii ayaa TV-ga caalamiga ah Somali Cable uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen. xalay saqdi dhexe xaafadda koronto la'aan ay ahayd suuqyada suuq ka mid ah oo Bangkok Shopping Mall ku yaalo Gaarisa Lodge Islii ayaa niman burcad ah ay galeen waxayna halkaas ku dileen laba ka mid ah waardiyaashii suuqa habeenkii waardiyeynayay. marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ehladii qaraabadii ka geeriyoodeen sida la socotaan hadda aaskoodii ayaan qabanqaabinaynaa oo ka socdo masaajidka South Sea waxaana lagu aasi doonaa galabta Langata Mochari. arrintaas way soo noqotay dhowr jeer la socotaan suuqan ugu horeyna inkastoo uu yahay hadda suuqa ugu dambeeyay dhowrkii bilood oo la soo dhaafay suuqyo badan ayaa la jabsaday sidaas loo jabsaday inkastoo dadna lagu dilin dhimasho aysan ka dhicin kan caaw wuxuu ugu duwan yahay dhimasho ayaa ka dhacday laba waardiyaasha kamid ah ayaa lagu dilay saddex dukaan oo suuqa ku dhex tiilanay waa la jabsaday ilaa haddana qiyaastii ma sheegi karo intay la baxeen maadaama aaskii iyo baaritaankii lagu mashquulsan yahay. sidoo kale Shiine ayaa Soomaalida ku nool xaafadani Islii ku wargeliyay inuu jiro banaanbax looga soo horjeedo dilalka iyo dhaca inta badan ka dhaca xaafadda Islii. haddana waxaan ka codsanaynaa ganacsatada maalinta Sabtida ah in aysan suuqa furin ay banaanbaxa nagala qayb qaataan oo ku cambaaraynayno marka koowaad amni darrada marka labaad booliska badan ee faraha badan ee xaafadda jooga habeen iyo maalinba baabuurta xaafadaha kale ka yimaado waxaan laaluush ahayn inay dumarkii dhalinyarada qabtaan ee lacag ka qaataan aan hawl kale noo hayn iyo qolada korontada xaafadda siiso oo inta badan xaafadda ay korontada ka maqan tahay xilliga ganacsiga lagu jiro habeenkii koronto ay maqan tahay maalintii ay maqan tahay saacana wada hadlayna xaafadda koronto ma lahan iyada lafteeda in cashuuraan bixinaa biilka korontada si fiican loo bixiyaa xaafadda ugu biilka badan ugu korontada badan bixiso inaan ayaga laftooda ku mudaharaadno mudaharaadkaas kadibna aan talaabo kale ka qaadano sidaan isku afgarno haday tahay in maxkamad la geeyo oo canshuuraha la joojiyo in qolada korontada laga joojiyo biilka in la bixiyo maadaama aysan biilka aan bixino dhaqaalaha aan gelino aysan ayagana dhankooda koronto nagu filan aysan nasiin. sanad walba marka la gaaro xilligan oo kale ayaa waxa xaafadda Islii ka dhaca dhac iyo dilal lidi ku ah ammaanka iyadoona dawladda Kenya ay marar badan sheegtay inay wax ka qabanayso ammaan xumada ka jirta xaafadda Islii. Cabdishakuur Faarax Igalle, Somali Cable, Nairobi.